صفوان بن أمية يا عمر بن وهب نكا لو رجري أيكم مركا لبدود ومشركين ومكة أي جوغان وزمن النبي عليه الصلاة والسلام وقعدي دقال كي بدر بالغا سو نقدي تضباطن قالدنا waa laga laayay toddobaatan gaalo ana nabigu waa qafasho oo xidho oo qaatay labadanna waa qaraabo Umar ibn Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa toddobaatan kala xidhay Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaasay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar ibn Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay to aanu adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid ii ka faala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeelada ku tagana anu maanta waan haystaayo inankayga baa iga xidhan oo itu sabaan oran lahaaye Muhammad aniga soo kharijin lahaa buu Safwan bin Umayya ayaa ka faa'iideysto yiri ma samayn kartaa haa waan samayn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raaco buu keen waa labadoodu kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysana waa taqaanaa la 400 kilometer وصار سعودي آلات كان زمن كان إمك أسكتور تورا إن فيسبوك يا واتساب يا بلايا جن مجري زمن كاس وصار سعودي مدينة وصار قال عمر بن وهب سوى سيفتي سجني قارن مر عليه مركو عمر بن الخطاب بايري وعمر بن وهب ها شيطان من شياطين قريش ويانه سيفتي نواكا جني قارن قرت كسيتي أردو النبي إلى علي يقول النبي إنه أجوج النبي كإلى علي صلى الله عليه وسلم شرق مو سعودي خير ما سعودي markaasuu ayaa rasuulka loo sheegay lagu yiri nabi Allah Umar bin Wahab soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa uu nabigu yiri soo galiya Allah soo galiya xaaladii midii buu ka yiri waxaan u imiday inankaygi oo asiir oo gacantiina ku jiro inaka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaan ay sameeysan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay oo ka wada hadalno markaa uu nabigu ku yiri seeftana qoorta ku sidata maxay tahay hadaa wuxuu qabbaha Allah bur ilaahay haba duleeyay seeftana ma waxbay noo tartay bur dagaalkii Badar iyadoo tan wadano Saoudiga 7 naga laayay 7 naga soo qafashay naga soo xidhay ma markaa uu nabigu ku yiri fariisa buu yiri arrinka ma harikaad u socoto aniga kaaga warramay oo fariista adiga Safwan bin Umayya saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fadhiisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii Badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri haddaan heli lahaa deynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aan u dhiibo iga kafiil noqoto haddaan heli lahaa Madiina intoon tagaan Maxamed aan kaga soo takhalusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna deynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabu haaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartid ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga waramay Allah waa uga waramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu Jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sidaa hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tiri baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa Allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waa ku rumayn adigane ilaahayna waa rumayn tawxiidka ay qirbu ku halkii buu ku qori ilaahay ka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaadan in wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisa u baahan tahay
ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan maaha. ilaahay isagaa ka taliya koonka. tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab wamra'atuhu xamaalatan xatab. imra'atu abi lahab ayaa nabigeenna u timid calayhi salaatu wasalaam iyadoo dhagax sidata. abubakar bay u timid oo halkan fadhiya, rasuulkuna uu ag fadhiya sal alla alay wasalam. abubakar iyo rasuulku dhinaca isku hayaan. markaasay leedahay abubakar aawa saaxiibka maanuu leeyahay naar baad ku dambayni doontaa oo gabaygiisa igu soo daray. gabay bay qur-aanka u haysataa moogta. abubakar rasuulkuu eega, haddaan maanta muxamed anu aan arki lahaa bay tidhi dhagaxa isaga ustee madaxan basho ka siin lahaa bay tidhi. markay iska noqotay buu abubakar nebigu saa eego, yaa rasuul allah mayna ku arkayn, may aniga aragaygu arki lahayd baa ilaahay ka qaaday buu yidhi. inagu hebel muxuu wax ku arkaa, ishuu wax ku arkaa baan leenahay, may amarka ilaahay buu wax ku arkaa. dhegtu wax ku maqlaa, may dhegtu amarka ilaahay bay u baahan tahay inay maqasho. lugtaadu inay socoto ilaahay amarkiisa u baahan tahay. khaaliq waa ilaahay. marka ilaahay macrifadiisu waa waajib, qof kastoo muslima laga rabaa ilahay inuu dhab u garto. tasarufaadka caalamka ilahay baa iska leeyahay. marka shayga ugu horeeya bini aadamka lagu waajibi waa ilaahay macrifadiisa. diintuna naseexadeedu halkaasay ka bilaabanta. lilaah kun cabdan lilaah, ilaahay addoonkiisii oo dhaba noqo. khulaasat alqur'aan markay culammadu ka warrameen khulaasat aladyaan, waxli wixii diin samada ka soo degtay oo dhan khulaasadii waxaa laga dhigay qur-aanka kariimka. qur-aankii kariimkiiba la soo khulaaseeyey. suuratu lfaatixa khulaasadii qur-aanka laga dhigay. suuratu lfaatixa ayaa la khulaaseeyey. labada aayadood bay culammadu iskugu keeneen, iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. khalaas qasamtu salaata baynii wa bayna cabdii. ilaahay jalla wacala waa ka qur-aanka ku lahaa salaadda waanu qaybiyey, anigii addoonka ayaa kala qaybsannay. oo salaaddu waa suuratu lfaatixa magaceega weeyaan. suuradda faatixada salaad baa la yidhaahdaa, faatixa la yidhaahdaa, umma alqur'aan baa la yidhaah, sabcu lmathaani baa la yidhaahdaa. suuraddaas waa suuradda uu nebigu yidhi waaladii nafsu muxammadin biyadihi maa unzilat fi altawraat walaa fi linjiil walaa fi lfurqaani miluhaa. ilaaha muxamed abuuray baan ku dhaartee suuraddaasi suurad la mida injiilna kumay soo degin, tawraadna kumay soo degin, qur'aanka kariimkaana suurad la mida kuma jirta buu rasuulku yidhi. callaamata ibni qayim aljawsi raximahullah wuxuu yidhi qur'aanka dhanba markaan eegnay waxa uu sharxayaa waa suuradda faatixada. suuradda faatixaduna waxay iyaduna ku soo ururtay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. waa markuu addoonku uu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim markaad tidhaahdid alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. markuu addoonku yidhaahdo ilaahay baa laxamadanii cabdii, addoonkaygii baa igu mahdiyey. alraxmaani araxiim markaad tidhaahdidna ahnaa calaya cabdi, ilaahay baa addoonkaygii baa i ammaanay. maaliki yowmiddiin markaad tidhaahdidna majadanii cabdi, addoonkaygii baa i weyneeyey. iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markaad tidhaahdidna ilaahay baa la haadaa baynii wa bayna cabdii, taasi aniga addoonkay naga dhaxaysa. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markaad tidhi xamadanii cabdi, ilaahay baa addoonkii baa igu xamdiyey. alraxmaani araxiim markaad tidhaahdidna alraxmaan waa allihii raxmaddiisu adduunka inta la joogtay khalqigoo dhan ay wada gaadhay weeyaan. alraxiim ee naxariistiisa banka qiyaamana mu'miniinta khaaska uga dhigay weeyaan. ahnaa calaya cabdi, addoonkii wii ammaanay buu ilaahay leeyahay. maaliki yowmiddiin markaad tidhaahdidna yowmiddiin waa yowma albacthi wannushuur, maalinka ilaahay milkiga iyo talada iska lahaayow markaad tidhaahdidna wuxuu ilaahay leeyahay majadanii cabdi, addoonkayga uu weyneeyey. iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markaad tidhaahdidna ilaahay baa kule haadaa baynii wa bayna cabdii, taasi aniga addoonkay naga dhaxaysaa. waa hagaaga adiguna i caabud oo addoonkaygii oo dhaba ii noqo, anigana kaalmahagii gargaarkaaga igu daa. sidaan doonaya ii yeel,
sidaa doonaysana anaa kuu yeelay sirta noloshu halkaa bay ku jirtaa dhoof ha ka raadin qaxooti ha ka raadin hay-ad loo shaqo tagana ha ka raadin waddankeena keena uga shaqo fiican waa ka hay-ad u shaqo taga hay-ad buu hebel la shaqeeya hay-ad odaygii islaantii heblaayo labadoodii wiil jaamacadday qalinjabiyeen hay-ad baa markiiba madaxa qaadatay madaxa hore hay-addu ka qaadatay yaa miskiin cabdillaahi banu xudaafa radia allaahu canhu markii boqorkii ruum uu soo xidhay waxaa loo bandhigay laba shay in boqortooyada ruumta la kala badh la siiyo oo diinta islaamka uu ka baxo saxaabi jaliila tilmiid min talaamiidi muxamed calayhi salaatu wasalaam qisiiskii baa ku yidhi ciidanka ninka wata waa nebi maxamed ardaydiisii arday ka mida ha naga dilin nasraaniyadda u bandhig waxli wuxuu diinta ku doorsan karana ha la siiyo si nasaarada islaamka ugu socota uu sadun can sabiilillaahi ugu noqdo laakiin waxayna ka warqabin nebi maxamed saxaabadiisu iimaankoogu carabka ma dul yaallo iimaankoogu qalbiguu dul yaallaa halkuu dul yaallaa qalbiga wa alzamahum kalimata attaqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha iimaanka saxaabadu ma aha mid carabka dul yaalla mid maadiyo la dhaafsan kara ma aha waa mid qalbigooga iimaanku fadhiistay weenu ilaahay ku tacalluqsan uu u yeedha boqorkii ma kula tahay inaad nasraaniyadda soo gali boqortooyadeedana kala barhkeed baan ku siine markaasuu qoslay wuxuu yidhi boqortooyadaada oo dhammaystiranoo waxba laga reebin iyo boqortooyada carabi ay haysato haddii halkaa la ii dhigo oo laygu yidhaahdo diinta islaamka ka baxo dib ugu noqo wallaahi inaanan yeelayn buu ka yidhi wallaahi maa facaltu buu yidhi darfata cayn diinta islaamka ka baxo iskaga noqo waxaasoo mulkigeena qaado ma yeelaya buu yidhi boqorkii baa ku yidhi dee waan ku dilaynaa dee waaba nin xidhanahay buu yidhi haddaad dilaysaan waa nin xidhanahay ixda alxusnayeyn bay sugayaan iyaku ima annasr wa ima ashahaada ima inay guul helaan oo tamkiinay helaan oo ilaahay gargaarkiisa loo ballan qaado indhahooga ku arkaan ima inay shahaado helaan ee firdows ay tagaan nolosha adduunyada waxba uma arkaan waxaa la sameeyey markaa boqorkii amar wuxuu ku bixiyey daryo waaweyn oo saliid oo karkaraya ayaa hortoodii la keenay laba nin oo muslimiintii intoo la soo qaado isaguna arkaayo ayaa la yidhi diinta islaamka ka noqda kama noqonayna bay yidhaahdeen markaasaa la qabto labadii ninba sida loogu tuuray qof bini aadanoo nool oo dhari saliid oo karkaraya loogu tuura ka warrama subxaan allah isagii baa markaa la dul keenay oo xidhxidhan ka noqo diinta islaamka oo nasraaniyadda qaado markaasuu yidhi ma qaadanayo lilmaa ka daadatay markaasaa boqorkii lagu yidhi hadduu cabsoodayo waxaan u malaynaynaa inuu gaaloobayo hadda markaasaa loo bandhigay nasraaniyaddii oo lahay gaalow markaasuu yidhi ma gaaloobayo de maxaad la oydaa lagu yidhi markii dabka lagu dul keenay dheriga karkaraya hal naf baa igu jirta waa iga baxaysaa mar keliya waxaan tamaniyey jidhkayga inta tin ku taalla in la tirin lahaa oo intaasoo ruuxa laygu abuuri lahaa oo mid walba intoo mar halkaa la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaniyoonan haysanoo ka ooyayaa buu ka yidhi naf keliya ma aha kumanyaal nafa in laygu abuuri lahaa oo mid walba halkaa intoo la dul keeno ilaahay dartii iiga bixi lahayd taasaan tamaninayaa mana haysta buu ka yidhi boqorkii baa yidhi kan dilkiis waxay noo tari maaye haska sii dayno waayahay sii daaya ma kula tahay buu ka yidhi madaxa inaad iga dhunkan waana ku sii dayne markaasuu yidhi magaal baan madaxa ka dhunkadaa isagii baa isla shuuraystay shardi buu ku xidho wuxuu yidhi haddii muslimiinta ila xidhan aad ii sii daynaysid haa waan kaa dhunkan haddii kale kaa dhunkan maayo buu ku yidhi markaasuu yidhi hagaag iga dhunko markaasuu yidhi magaal baan madaxa ka dhunkadaa anuu asxaabtii nebi maxamed ka mid ah raggaa haguu sii daynaya soo maahayna waan ka dhunkan ila berriba jihaad baan ku soo celinaya kala bixi mayna cajiib asxaabta rasuulka ay soo galeen cumar binu khadaab baa soo dhoweeyey inuu gaal madaxa ka soo dhunkaday ayaa u sheegay baa la yidho raggii la socday baa cumar ku yidhi
cabdillaahi banu xudaafa ha dhunkano ha salaamin oo ha soo dhowayn waayo gaal buu madaxa ka soo dhunkaday innakana hebel dibaddu u baxay hebel dibaddu u baxay hebel hay-ad buu la shaqeeyaayo waa iskugu toostay gaal inaad la shaqayso ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan gaalada dhulkooga inaan tagno ayaa maanta muslimiinta horumar u arkaan iyakuna raggii la soo daayay dhunkashada lagu soo daayay baa cumar ku leh gaal buu madaxa ka soo dhunkaday ha salaamin cumar baa yidhi balukaadii ha waraystay sidee ku dhacday inaad nin gaala madaxa ka dhunkataa wuxuu yidhi iyakaa ku soo daayay buu yidhi si markaa cuqdadii yareeda qalbiga u gashay uu cumar uga bi'iyey buu yidhi xaqun calaa kulli muslimin an yuqabila ra'sa cabdillaahi banu xudaafata wa ana abda'u bidalika buu yidhi qof kasta oo muslima waxaa xaq ku ah buu yidhi cumar in maaragtana cabdillaahi banu xudaafa uu madaxa ka dhunkado anigana ka bilaabayo buu yidhi anigana ka bilaabayo ilaahay bay ku xidhnaayeen islaamnimaday ku xidhnaayeen addoommo waxay noqdeen ilaahay uu iska leeyahay sidii ilaahay doonaya markay yeeleen sida iyakuna ay doonayeen baa ilaahay adduunka u yeelay siday doonayeen marka noloshan adduunyada macaankeyga raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub baa ilaahay yidhi aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey ee quluubtoodu taacadda ilaahay iyo dikriga ilaahay ay ku xasilayso ilaahay baa yidhi alaa intabihuu ilaahay baa inoo nasteexaynaya ilaahay baa inoo yeedhaya ilaahay baa inoo khayr miiraya walaa yunabbi'uka midlu khabiir fas'al bihi khabiira waman asdaqu min allaahi qiila ilaahay baa kuu warramaayo ku leh war qalbigiinnaasi wax kale ku xasili maayo aniga macrifadeedu qalbigiinu ku xasilaya qalbigu salaadu ku raaxaystaa qalbigu quraanku ku raaxaystaa qalbigu dikriga ilaahay buu ku raaxaystaa qalbigu taacadda ilaahay buu ku raaxaystaa nacam nin a'immada muslimiinta ka mida ayaa odhan jiray khamsun min dawaa'i alqalbi shan ayaa qalbiga bini aadamka dawaysa tilaawata alqur'aani bitadabbur qur-aanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakkur iyo qiyaama alleyl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa tacaala la hor joogsado wa tadarruc cinda asaxar iyo waqta asaxar xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wacalaa lala munaajoodo wa khalaa'u lbadni iyo calooshaadoo mar walba badhnaata wa kasratu siyaam bay culimmadu leeyihiin inuu qofku soonkiisu bato wa mujaalasatu saalixiin dadka war wanaagsano lala fadhiisto shantaasay culimmadu yidhahdeen qalbigee dawaysaa tilaawata alqur'aani bitadabbur imika naga qur-aanku maasha allah waan iska akhriyana tadabburkii baa naga maqan asxaabta rasuulka radia allaahu canhum laga yaabaa hal aayadoo qur'aana sida habeenka ugu celcelinayaan buu waagu u baryaayay wabadaa lahum min allaahi maa lam yakuunuu yaxtasibuun sufyaan athawri raximahullah aayaddaa qur-aanku habeenkii markuu salaatileylkii xidhay markuu gaadhay wabadaa lahum min allaahi maa lam yakuunuu yaxtasibuun waxaysan ilaahay ka malaynayn ayay kala kulmeen banka qiyaame hadduu lahaa khayr baan wataa may khayrkiisii ma aha arrintu way ka weyn tahay salaad baan wataa salaadda waa lagu badbaadayaa laa shakka laakiin muuminku halkaa markuu banka qiyaame ilaahay hor joogsado salaadii iyo soonkiisii eegi maaye ilaahay raxmaddiisa buu maanta eegaya qofka mu'minku ilaahu raxmaddaadiun buu leeyahay aayaddaa qur-aanku waagu ugu bariyey abi bakr sidiiq radia allaahu canhu markuu nebigeennu xanuunsado xanuunkii la dhacay ayaa nebiga lagu yidhi salaaddii baa taagan nebi allow markaasuu nebigu yidhi abubakar u sheega ummadda salaada